Assalaamu calaykum. Dunidan aynu ku noolnahay waxaa jira dad had iyo habeenba u taagan siday wax cusub caalamka ugu soo kordhin lahaayeen, kuna dadaala siduu u hirgeli lahaa ikhtiraacasi. Muuqaalkeennan waxaan ku soo qaadan doonaa ikhtiraacyahankii ikhtiraacay ilayska awoodda korontada amba elektarika, Thomas Alva Edison. Aynu daawanno muuqaalka oo dhammaystiran. Fadlan muuqaalka like saar, kuna soo biir channelkeena Flash Tube. Daawasho wacan. waa channelkeennii Flash Tube Media. Tom wuxuu ku dhashay magaalada Milano ee gobolka Ohio sanadkii 1847. Toddobadii sano ee noloshiisa ugu horreysay ma uusan haysan walaalo la ciyaara oo uu hal u noqdaa, waana waqtiga ay carruurtu ugu ciyaar jeceshahay. Gabadh ay walaalahaayeen way guursatay, walaalkiisii ka weynaana uu shaqo tegay. Kaliya guriga waxa ugu helo hooyadii iyo habaryartii oo marmar soo booqata. Edison wuxuu ahaa ilmo yar oo su'aalo badan. Shay kasta oo arko wuxuu dooni jiray inuu wax ka ogaado. Magaciisa muxuu yahay? Maxaa laga faa'iidaa? Muxuu sidaas u sameeyey? Su'aalihiisu aad bay u badnaayeen, waxayna ahaayeen qaar isdaba joog ah. Markay da'diisu ahayd 7 jir, qoyskiisu waxay u guureen magaalo la yidhaahdo Michigan, halkaasoo madrasad lagu daray. Laakiin Edison 3 bilood kuma wada jirin madrasaddaas. Wax kasta oo loo dhigana wuu iloobi jiray, wuxuuna mar walba noqon jiray ardayga ugu hooseeya fasalka. Sidaa awgeed macallimiintiisii way ka quusteen, waxayna ku tilmaameen inuu yahay ilmo yar oo caqligiisu aad u hooseeyo, mustaqbalna aanu weligii yeelan doonin. Maalinkii wuxuu guriga ku soo laaban jiray isagoo ooyaya oo ay ilmadu indhihiisa ka daadanayso, maxaa yeelay macallinkii ayaa ardayda hortooda ku caayay oo ku yidhi, adigu waxaad tahay ilmo yar oo saaqida oo bilaa faa'iida ah. Xataa dhakhaatiirtu waxay saadaaliyeen in maskaxdaadu wax weyn ay kaga dhiman yihiin. 3 bilood kuma wada dhigan madrasaddaas. Macallinkii waa uu soo eriyey, wuxuuna hooyadii ku yidhi, inankaaga maaha mid wax sii baran kara, raalli naga ahow, madrasadana looguma talagelin dad maskaxdu wax uga dhiman yihiin. Ka waran ilmo yar oo 7 jir ah oo hadalkaas ka maqlay macallinkiisa. Hooyadii arrinkaa aad bay uga xumaatay, waxayna ku jawaabtay, inankayga maaha mid saaqida, waxna wuu baran karaa, aniga ayaana baraya. Waxay ku abuurtay kalsooni aad u buuxda, iyada ayaana macallimad ugu noqotay guriga dhexdiisa, waxayna ku guulaysatay inay barto wax akhriska. Kadib markii uu wax akhriska bartay, wuxuu bilaabay inuu akhriyo kitaab kasta oo uu arko, habeen iyo maalin uu akhriyo. Xataa haddii hooyadii isku daydo inuu u iibiso dhar, waa uu diidi jiray, lacagtana kitaab ayaa uu ku iibsan jiray. Hooyadii muddo 3 sano ayay sidaa ugu waday. Inkasta oo ay tahay muddo gaaban, haddana siduu Edison yidhi, hooyaday waxay nafteeda ku beertay jacayl cilmiga, waxayna fahansiisay ahmiyaddiisa. Sanad guuradii 10aad ee dhalashadiisa, aabbihii wuxuu u iibiyey kitaab saynis ah oo ay ku jiraan cilmiyo badan oo ka hadlaya cilmiyadii la daafuray qarnigii 19aad, sida tareennada, telegaraamka. Kitaabka marka la eego, Edison wuxuu u furay albaab cusub noloshiisa. Waxaa lagu qiyaasay inay ikhtiraacadiisu gaadhayaan 1093 ikhtirac. Wuxuu yaraantiisii nolosha ka bilaabay inuu wargeysyada u qaado khadka tareennada. Waxa uu aad ugu fiirsaday daabacadda iyo sida ay u shaqayso. Kadib 1862 ayuu bilaabay inuu baahiyo wargeys toddobaadle ah oo uu u bixiyey Grand Junk Herald. Waxa uu wargeyskaas ku daabaci jiray qalabka si uu isku geegeystay, waxaanu kaga daabaci jiray qaybta dambe ee tareenka. Tareenkaasna si maalinle ah ayaa u raaci jiray 2 magaalo dhexdood, balse maalin ayaa kimikaalna u diyaarsaday ay gubeen khadkii tareenka. Isna tareenka ayaa laga eriyay oo alaabtiisii ayaa dibadda loogu daadiyey.
kadib markii ay fikradiisa ku soo dhacday inuu dhisto shaybaadh isaga u gaara oo wax ku tijaabiyo. Maalin ayaa uu arkay ilmo yar oo khadkii tareenka galay. Sigadiisa ayaa u cararay waana soo badbaadiyey. Ilmahaasna waxaa dhalay maamulkii bosteejadaas. Maamulihii wuxuu ku abaalmariyay inuu ka shaqeeyo qolka fariimaha ee telegraafka yaallo. Waxa uu dhisay shaybaadhkiisii ugu horreeyay oo wax ku ikhtiraacdo sanadkii 1876, wuxuuna halkaas ku ikhtiraacay markii ugu horreysay aaladda gramophone oo codka lagu duubi jiray. Dadaal iyo kaca ku fara badan waxa uu ikhtiraacay leydhka, waxaana uu sameeyey mid ka mid ah xarumaha ugu weyn ee koronto ee adduunka laga dhisay. Sanadkii 1887 waxa uu shaybaadhkiisii u raray magaalada West Orange ee maamulka New Jersey ee dalka Mareykanka. Sanadkii xigay 1888 waxa uu aasaasay aaladdii ugu horreysay ee film lagu duubo, laguna magacaabi jiray kinetoscope. Sanadkii 1913 waxa uu soo saaray filimkii ugu horreeyay ee cod leh. Haddana ikhtiraacyada badankooda waxaa la xusaa inaanay fikirkiisa ku dhalan, uu soo ururin jiray. Waxaa lagu maamusay Thomas biladda Albert ee ay bixiyaan qoyska boqortooyada Ingiriisku. Dhanka kale noloshiisa waxa uu guursaday 2 jeer, xaas walbaana waxay u dhashay 3 carruur ah. Isaguna aakhirkii waxa uu ku dhintay deegaanka New Jersey ee dalka Mareykanka, waxaana uu dhintay anemia ama dhiig yaraan saameysay jidhkiisa 18 Oktoobar 1931 isagoo 84 jir ah. Thomas Alva Edison xikmadaha laga alifay waxaa ka mid ah. Waxa uu yidhi, afkaarteeda badankeeda waxay ikhtiraacay dad, kuwaasoo aan isku hawlin horumarinteeda. Libinta 1% waa hibo, 99 kalena waa dadaal. Edison waxaa lagu naanaysaa ikhtiraacyahankii ugu saameynta badnaa ee dalka Mareykanka gudihiisa. Cidda ugu badan ee afkaartooda ikhtirac ka samayn jiray ee uu ku sudkanaana waxa uu ahaa Nikola Tesla, oo ahaa ninkii ugu horreeyay ee leydh xadhig la'aan ama wireless sameeya. Sidaasoo ay tahay kama maarmi karno leydhka iyo faa'iidadiisaba. Intaas ayaynu kusoo koobaynaa muuqaalkeena maanta. Ha iloowin hadduu muuqaalku qanciyay inaad like saarto, subscribe na saar channelkeena Flaax Tube. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.